Assalaamu calaykum. Inta badan ummadda Soomaaliyeed waxa ay ku hamiyaan in ay maalin ku noolaan doonaan dal nabdoon oo xasiloon degan, xorna ka ah dhibaatooyinka argagixisada iyo siyaasadaha isdiidan ee ummadda ragaadiyay 30 sano u dambeeyay. Haddaba aan dib u xasuusanno habeennimadii 26 January sanadkii 1991 markii dawladda dhexe ee Soomaaliya ay burburtay. Taasina waxa ay keentay dhibaatooyin ba'an oo muddo 30 sano ku habsaday dalka. burburkii dawladnimadii Soomaaliya kuma uusan ekaan nidaamkii kaliya inuu meesha ka baxay, laakiinse waxa burburay mustaqbalka malaayiin Soomaaliya ah kuwa hadda soo socda iyo kuwa hore u joogay. Dhibaatooyinka siyaasadeed iyo mid dhaqaale ee Soomaaliya haysatana waxa ka mid ah ma jirto hadda dawlad awood leh oo gacanta ku haysa guud ahaanba dalka oo dhan. Maanta ma jiro maamul dhexe oo awood u leh inuu isku hayo guud ahaanba Soomaaliya. qaar ka mid ah siyaasiyiinta ayaa iyaguna ka mashquulsan sida ay kursiga markaasi u sii joogi lahaayeen, iyagoo aan dan ka lahayn maslaxadda shacabka iyo mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee maalin walba ku sii baxaya saxaraha Liibiya. Hogaamiyaasha qaarkood waxay ku mashquulsan yihiin dana gaar ah oo shakhsiyadeed, taasi oo keentay isqabqabsi, musuqmaasuq iyo kala qaybsanaan baahsan oo bulshada Soomaaliyeed ka dhex jirta. Waxaa jira kuwa dana gaar ah wata, kuwaas oo horumarinaya danahooda shakhsiyadeed kana horumarinaya kuwa shacabka, isla markaana dhibaatada waa ay sii korortay. waxaa la isticmaalayaa dhalinyarada iyadoo la isugu dhiibayo qoryaha, mana jirto wax mabda ah oo ay ku dirirayaan dhalinyaradaasi. dhaqaalaha Soomaaliya waa mid aad u nugul, waxaa jirta shaqo la'aan baahsan gaar ahaan dhalinyarada, taasi oo ay dhalisay in ay ku biiraan kooxaha argagixiso, qaarkoodna ay tahriibaan. dhaqaal xumadu waxay sidoo kale sababtay in kooxaha argagixiso ee ka dagaalama Soomaaliya ay uga faa'iideystaan dhalinyarada shaqaale la'aanta haysa, iyagoo ku wajahaya xaalado adag. tani waxay gacan ka geysanaysaa sii socoshada dagaalada iyo sidoo kale kala fogaanta siyaasadeed iyo kala qaybinta ummadda Soomaaliyeed iyadoo la sii dirayo damiirkooda. dhibaatada kooxaha argagixiso ay ku hayaan Soomaaliya. kooxaha argagixisada oo Mareykanku u yeero sida Daacish iyo Al-Shabaab ayaa si joogto ah u howlgala Soomaaliya. waxay ka taliyaan qaybo ka mid ah Soomaaliya iyagoona ku cawaadiya shacabka, canshuurna ka qaada, xukunkooda sharciga meelna diinta ugu oolna ku xukuma dadkaasi miskiinta ah. qaraxyada iyo weerarada baan ee kooxahan ay filinayaan waxay sababeen khasaare nafeed oo fara badan iyo weliba burbur dhaqaale iyo mid bulshadeed. kooxahani ayaa inta badan waxay bartilmaameedsadaan goobaha dadweynaha sida suuqyada, masaajidda, goobaha waxbarashada, iyagoo dadka ku beeraya cabsi joogto ah. waxaa intaas sii dheer in bulshada Soomaaliyeed aysan awoodin inay helaan waxbarasho iyo caafimaad tayo leh, taasi oo keentay inay bulshadu noqoto mid aad u liidata, isla markaana aysan awoodin inay la tartanto dadweynaha kale caalamka. inkastoo shacabka Soomaaliyeed ay la kulmeen dhibaatooyin aad u badan 30 sano ugu dambeeyay, haddana shacabka Soomaaliyeed kama quusan rajada inay helaan dalkooda horumar iyo nabad sameynaya. waxaana muhiim ah in bulshadu iskaashato, isla markaana lagu fiiqo farta kuwa siyaasiyiinta ee danaysanaya iyo kooxaha argagixiso ee dadkan dhiigooda ka ganacsanaya.